gabdhihii dhibaato fara badan baad ku haysaane ka daaya subaxii waa la kicin la'yahay xaloo dhan buu u sheekayna xaloo dhan buu wax been iyo waxaan jirin iyo qubxi ku daldalahay saanaan ku yeela intaan kaa bixina kanaan ku yeelaya oo beentii ah subaxiina waa ka dhuumana wuxuu ka dansanaa moomilka habeenkii haddana ku bilaabaya dhallinyaro waxa idin xafidi kara waa soonka waxa idin xafidi kara waa guurka waxa idin xafidi kara waa taaca ilaahay waxa idin xafidi karaa waa inaad ilaahay u dhawaataan subxaana wa tacaala soonkaa laga celin jiray kuwii hore intay soonka badiyeen ay soonka laba jibaareen yaa rasuulku wuxuu dhihi jiray saaha yeelina salaad baa laga celin jiray waxyaabo fara badan oo noocaas ah aawa saddexdii wiil ee inta guriga nebiga timid tiri camalkiisa noo sheega markii loo sheegayna mid yidhi aniga maba seexanaya habeen walbaa taagnaana waa dhallinyaro habeen walbaa tugan ilaan ka dhinto kii kalena anigana dumarka guurkooda dhan baan ka fogaanayaa sakoraa dhammaatay cafaayad dhammaatay iyo kan keen iyo maxaa lay dhahaya waa ka iska dhaafaya ayagoo dhan bashirtooda iyo fidnadooda ka saddexaadna muxuu dhahay anigana waa soomayaa dahriga oo dhan in allaala intaan noolahay warsaa ha yeelina waxa laga celcelinaya waa soon idinkana waxa laydin faraya waa soon intaad soomi lahayd waxaa kaaga fiicnaa dembi gasha miya inaad gacanta ka qabsato gabadhol magaalada la marta miya dhallinyarada qaarkood waxaad moodaaba in jannadii ilaahay loogu ballan qaaday saasuu u socdaa laba gabadha dhexda oga jirta markaasaa wuxuu u soconaaba si mataqaanaa shaydaankaba ka xun sow u soconaya mutakabirnimada iyo isla weynida iyo waxyaabaha noocaasoo kale ah meeshaa masaajidka albaabkiisu soo maraa xataa hadduu xishoon lahaa bocbocyadaa iyo meelaha jiiqda iyo keentoo la mar lax bay ahaan lahayd idaa lam tastaxyi fasnac maa shita haddaadan sariig lahayn waxaad doonta samey buu dhahay nebiga marka tobankan dambe aad aan u dadaalno tobankan dambe ilaahi subxaana wa tacaala aan barina soonkaan soo soonnay inuu ilaah naga aqbalo juhdigana aad loo laba jibaaro qofkii ictikaafaa aad buu u fiican yahay ilaah subxaana wa tacala agtiisa ajir dheeraada ayuu markaa ka helayaa qofkii tobankan dambe kaca nabigaa yidhi man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbihi intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa tobankaa dambe qiimaha iyo fadliga iyo wanaagga uu leeyahay halkaa habeen sadaqaad la baxdo salaad aad dukato baryo aad rabbi barido tasbiix aad la timaado khayrun min alfi shahr kun bilood way kaa khayr badan tahay laga yaaba inuusan cimriga xataa gaari lahayn markaa kadibna gebagabadii soonkaa la gaarayaa soonkii baa dhammaanaya mar allaala markuu dhammaadana ummaddu waxay noqonay raabix iyo khaasir qof ribxay oo liibaanay oo guulaystay oo soonkii alla ka aqbalay iyo khaasir khasaaray hoogay dulloobay dadka labadaasay u kala qaybsami doonaan ilaa xaqa waxaan ka baryaynaa inuu nagu daro dadka raabixiinta ahoo ribxi doono faa'idi doona soonkoodana ilaahay ka aqbali doono subxaana wa tacaala ilahay waxaan ka magangelaynaa dadka khasaaray ee soonkooda inta lasoo duudo wejiga looga soo tuuray ee rabbi dhahay hoo soonkaaga uma baahniyo waciyaadu billaah kuwaan ilaahay naguma daro subxaana wa tacaala inta xanuunsan caafimaad taama ilaahay ha siiyo inta jiran ilaahay caafimaad taama allah ha siiyo inta xanuunsan allah ha caafiyo inta dhibteena dhibka allah ka qaado inta kurbaysan kurbada allah ka faydo in allaala inta dhibaataysa dhibka allah ka rafaco shalay shaydaan allah naga xijaabo dadka saa'imiinta soonkooda la aqbala allah nagu daro baabu rayaan dadka ka geli doona allah nagu daro dadka laga soo celin doono fadhin doono meeshooda ilaahay ha naga najiyey subxaana wa tacaala ilahay quluubtana isu koos dumo salaadaha allah naga aqbalo cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaagga sida aan ugu socono ramadaanka intaan ku jirno markuu dhammaadana ilahay saasoo kale ha noo qadiro ilaahay subxaana wa tacaala intii xumaanta ka soo tagtay ramadaan dartii goobihii qayilaada meelihii fisqiga meelihii macaasida masaajidka soo buux dhaafiyey ilahay sidooda allah noogu sugo masaajidkii beytka alla allah ku sugo shaydaan marka la soo daayo wuu soo noqon doonaa masaajidka albaabkiisuu nagu sugi doonaa intii ka soo firxatuu raadin doonaa inuu ku darsadee shartiisa allah naga xijaabo shartiisa allah naga haayo tobanka dambe kuwa ka faa'iideysta allah naga dhigo ilaahi subxaana wa tacaala laylatu lqadri kuwa waafaqa rabbi allah naga dhigo allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cana wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala